kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka kulanka wararka qodobada wararkeena ee xilligan waxay kala yihiin odayaasha dhaqanka cadaado oo shuruud adag ku xiray la kulanka ra'iisul wasaare Khayre iyo kulan xasaasi oo ka socda magaalada Gaalkacyo dowladda federaalka oo bedeshay musharaxii ay hore ugu qorsheysay Galmudug haddaba magaca musharaxa cusub ee dowladda federaalka ay la doonayso Galmudug ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa dowladda federaalka oo amara dhinaca amniga ah soo saartay kadib qaraxyadii magaalada Muqdisho musharaxiinta Jubbaland oo loolan adag ka bilaabay magaalada Kismaayo iyo culeys soo wajahay Axmed Madoobe xiisadii ka dhalatay xilka qaadista Yuusuf Dabageed oo taagan iyo wafdi culus oo maanta gaaray magaalada Beledweyne iyo farmaajo oo lagu qasbay inuu wada hadal ka gala badda Soomaaliya iyo kulanka isaga iyo Uhuru Kenyatta oo la shaaciyay intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan odayaasha dhaqanka magaalada Cadaada ayaa shuruud adag ku xiray la kulanka ra'iisul wasaare Khayre iyadoo dhanka kalena wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ay sheegayaan in halkaas ay kulamo xasaasi ay ka socdaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi la socda oo xalay ku hoyday magaalada Gaalkacyo ayaa kulamo la leh qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi kadib markii shalay gelinkii dambe si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug isagoo kala hadlay doorkooda dib u dhiska Galmudug iyo nabadda gobolka Mudug sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa la filayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo inuu la kulmo odayaasha garadka magaaladaasi isagoo kala hadli doono sidii loo dhisi lahaa Galmudug oo midaysan dhinaca kalena magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaa maanta kulan ku yeeshay wasiiru dowlaha howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka magaalada Cadaado isagoo wasiirka uu kala hadlay sidii ay ula kulmi lahaayeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya odayaasha dhaqanka magaalada Cadaado ayaa shalay diiday inay la kulmaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyagoo sheegay inuu uga baxay ballan hore ay u wada galeen wasiiru dowlaha howlaha guud iyo dib u dhiska Soomaaliya Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa odayaasha dhaqanka Cadaado ka dalbaday inay muhiim tahay in ra'iisul wasaaraha ay kala hadlaan tabashada ay qabaan waxaana uu sheegay in dadka degan magaalada Cadaado ay xaq u leeyihiin inay soo bandhigaan cabashadooda waxaana uu odayaasha dhaqanka u soo jeediyay inay la kulmaan ra'iisul wasaaraha wararka laga helayo magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay sheegayaan in odayaasha dhaqanka ay ogolaadeen inay la kulmaan ra'iisul wasaaraha isla markaana ay u gudbiyaan cabashada ay qabaan ugu dambeyntii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa la filayaa in markii saddexaad uu ku laabto magaalada Cadaado isla markaana uu la kulmo odayaasha iyo waxgaradka magaaladaasi dhinaca kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bedeshay musharaxii ay hore ugu qorsheysay Galmudug haddaba magaca musharaxa cusub ee dowladda federaalka ay la doonayso Galmudug ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa dowladda Soomaaliya ayaa bedeshay go'aankeedii ku aadanaa cidda ay u sharxayso doorashada dhawaan ka dhacaysa Galmudug ra'iisul wasaare Khayre iyo dowladda oo markii horeba la sheegay inay gadaal ka riixayeen Cabdilaahi Faarax Weheliye oo ah wasiiru dowlaha arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda oo ka soo jeeda beesha Duduble ayaa hadda wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in isbedel weyn uu ku imaaday go'aankaasi madaxda ugu sareysa dalka ayaa isku raacay ugu dambeyn in musharaxooda Galmudug uu noqdo wasiir Axmed Cabdi Qoorqoor maadaama ay qasab tahay in la qanciyo beesha Saleebaan oo ka gadoosan in looga baxay ballan ku aadan inay Cadaado noqoto xarunta baarlamaanka Galmudug ayna magaalada ka dhacdo doorashada maamulkaasi Qoorqoor ayaa ka mid ah siyaasiyiinta ay ku tashata nabad iyo nolol isla markaana lafdhabar u ah ololaha ay ka wada Galmudug ayay isku raacday inuu noqdo musharaxooda Qoorqoor oo ka soo jeeda Cadaado ayaa waxa uu cadaadis xoog leh kala kulmaya xildhibaanada ay isku beesha yihiin oo ay ugu horeeyaan xildhibaan Odawaa senator Abshir Buqaari iyo waliba xildhibaan Saabir kuwaas oo ku sugan magaalada Cadaado isla markaana meel ku xirtay odayaasha Cadaado kuwaas oo qorshuhu yahay inay gabi ahaanba qaadacaan inay doorasho ka dhacdo magaaladaasi Qoorqoor iyo xildhibaano kale ayaa shalay awoodi waayay inay odayaasha Cadaado ka dhaadhiciyaan inay kulan la qaataan ra'iisul wasaare Khayre waxaana ay odayaasha ku xiran yihiin xildhibaanada mucaaradka ra'iisul wasaare Khayre oo Cadaado kulan kula qaatay siyaasiyiinta Cadaado ayaa ka codsaday inay kala shaqeeyaan doorashada Galmudug balse waxay u sheegeen in go'aanka Cadaado ay leeyihiin odayaasha dhaqanka ayna macquul ahayn inay dabamaraan dhibaatada ugu weyn ee uu Qoorqoor la kulmi doono ayaa ah inuu taageero ka waayo odayaasha Cadaado kuwaas oo u arkay inuu yahay
nin ku shaqeeya rabitaanka dowladda isla markaana aysan uga fadhin inuu u doodo maqaamka Cadaado. Xildhibaanadu waa Senator Abshir Buqaari iyo Xildhibaan Saabir ayaa ku dhagan go'aankooda ah inay Cadaado hesho maqaamkeeda, waxaana ay taasi ka saaciday inay gacanta ku qabtaan odayaasha Cadaado oo iyagu ay dabiiciyanba ay ka go'an tahay inay Cadaado maqaam hesho ayna marnaba gorgortan ka geli doonin arrintan. geesta kalena dowladda federaalka ayaa amar dhinaca amniga soo saartay kadib qaraxii shalay ka dhacay magaalada. Kadib kulan ay Muqdisho ay ku yeesheen guddiga amniga ayaa waxa ay ka soo saareen amaro dhinaca amniga oo la farayo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda iyo gaadiidleyda ku nool magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Injineer Yariiso iyo xubnaha guddiga amniga gobolka Banaadir, waxaana kulankaasi uu daba socday kadib falal amni daro oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Amarada laga soo saaray kulankaas ayaa waxa warbaahinta u sharxay gudoomiyaha gobolka Banaadir, waxaana uu sheegay in marnaba magaalada Muqdisho aan lagu arki karin askarta ku labisan dareeska militariga, waxaana qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda uu ka dalbaday inay joojiyaan ilaaladooda oo mararka qaar lagu arko gudaha magaalada. Dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa digniin u diray milkiilayaasha gaadiidka sida bajaajta iyo gaadiidka kale, isagoo sheegay inay gaadiidkooda diiwaan geliyaan, isagoo sheegay in dadka iska iibiya gaadiidkooda u diiwaan gashan dhibaatada lagu geysta ay mas'uuliyadooda ay qaadi doonaan. Amarada ku saabsan dhanka amniga gaar ahaan in magaalada Muqdisho aan lagu arki karin askarta ku labisan dareeska ciidanka militariga ayaa horey waxa uu soo saaray wasiirka amniga Soomaaliya, hase yeeshee amarkaasi uusan dhaqan gelin. Markana magaalada Kismaayo, musharaxiinta Jubbaland ayaa loolan adag ka bilaabay magaalada Kismaayo iyo culeys soo wajahay Axmed Madoobe. Waxaa magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland ka socda shirar ku aadan doorashada ay qabanayaan musharaxiinta ku tartamaya xilka madaxweynaha 4 sano ee soo socota ee Jubbaland, waxaana ay kulamada intooda badan ay musharaxiinta yeelanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha, culimada, waxgaradka, cuqaasha, haweenka iyo dhalinyarada. Musharax Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo dhawaan gaaray magaalada Kismaayo ayaa durbaba la kulmay bulshada ku nool deegaanada Jubbaland, waxaana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu dib ugu soo laabto magaalada Kismaayo isla markaana sanadkan uu ka mid noqdo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland. Waxaa la gaaray xilligii dadka ku nool Jubbaland ay dooran lahaayeen, waxaan ahay shakhsigii samata bixin lahaa Jubbaland, waxaan ahay mas'uul hore xilal u soo qabtay wax badanna ka yaqaan baahida ay qabaan maamulada dalka. Sidaasi waxaa yiri musharax Shuuriye oo intaa raaciyay, waxaan isku xir ku sameyn doonaa degmooyinka Jubbaland, waxaan xooga saari doonaa garsoorka iyo amniga guud ahaan ee Jubbaland si loo helo ummad dhinac walba ka horumarsan, waxaana ka shaqeyn doonaa adeegyada bulshada ayuu yiri musharaxaasi. Waxaa la gaaray maalinkii aan sixi lahaa wixii qaladaad ee hore u dhacay, waxaan dib u heshiisiin dhexdhigi doonaa bulshada ku nool deegaanada Jubbaland oo baahi weyn u qaba ayuu yiri musharax Shuuriye, waxaana uu soo jeediyay xildhibaanada la soo xulayo ee dooranaya madaxweynaha Jubbaland inay doorashadooda ku saleeyaan cadaalad si loo helo mas'uuliyiin si hufan uga soo dhalaala wixii loo doortay oo ah horumarinta deegaanada Jubbaland. Musharax Shuuriye oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa maalmaha soo socda wuxuu magaalada Kismaayo ka sii wadi doonaa ololihiisa doorashada, sidoo kale waxa uu kulamo la yeelan doonaa xildhibaanada cusub ee maamulka Jubbaland si ay isu meel dhigaan qaabka ugu habboon ay u dhici lahayd doorashada. Sidoo kale waxaa jira musharaxiin kale oo gaaray magaalada Kismaayo halkaas oo iyagana lagu soo dhaweeyay, waxaana arintani cabsi ku abuurtay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo culeys badan kala kulmaya dowladda. Magaalada Kismaayo ayaa hadda ah mid mashquul badan, waxaana ka socda shirar iska soo horjeeda iyo hardan siyaasadeed. Dhinaca kalena xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii Yuusuf Dabageed ayaa ka taagan magaalada Beledweyne iyadoo maantana wafdi culus ay halkaasi gaareen. Weli waxaa xal laga gaarin xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ku sameeyay gudoomiyihii maamulka gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, waxaana xalinta xiisadaasi maanta Beledweyne u tagay wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaas Hirshabelle Cusmaan Bare Maxamed ayaa isla maanta magaalada Beledweyne wuxuu ka bilaabay kulamo uu uga gol leeyahay xalinta xiisada u dhaxaysa
madaxweyne Waare iyo Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle Cusmaan Bare Maxamed oo la hadlay warbaahinta ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in isla maanta uu bilaabay kulamada xalinta isla markaana uu la kulmay madaxweynaha maamulka Hirshabelle mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa sidoo kale uu hadalkiisa intaa ku daray in kulamada lagu xalinayo khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Waare iyo Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu sii wadi doono isla markaana uu rajo wanaagsan ka qabo in xal laga gaaro. Xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa horay beledweyne u tagay kuwaas oo ku guuleysan waayay xalinta xiisadaasi, waxaana xusid mudan in muddo bil iyo dhowr cisho ah aysan wax shaqo ah ka socon xarumaha maamulka gobolka Hiiraan. ugu dambeyntiina madaxweyne Farmaajo ayaa lagu qasbay inuu wada hadal ka galo badda Soomaaliya iyo kulanka isaga iyo Uhuru Kenyatta oo la shaaciyay. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa toddobaadka soo socda u safri doona magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, sida ila lagu kalsoonaan karo ay inoo xaqiijiyeen. Madaxweynaha ayaa halkaasi kula kulmi doona madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. kulanka labada madaxweyne ku dhex mari doona Addis Ababa ayaa waxaa gadaal ka riixaya dowladda Mareykanka oo doonaysa inay arintan muranka badda labada dal wada hadal ay ka galaan. dowladda Mareykanka ayaa horey u shaacisay mowqifkeeda ku aadan muranka dhanka badda ee u dhaxeeya labada dowladood, waxaana uu safiirka Mareykanka u fadhiya Kenya ku baaqay in miiska wada hadalka lala fadhiisto. safarka uu wasiirka maaliyadda Itoobiya Axmed Shide ku imaaday Muqdisho ayaa horudhac u ahaa kulanka labada mas'uul, waxaana la sheegay inuu Shide fariin u soo gaarsiiyay madaxweyne Farmaajo. sida ila wareedyo rasmi ah xaqiijiyeen, fariinta uu Axmed Shide ka soo qaaday Abiy Axmed ee uu soo gaarsiiyay madaxweyne Farmaajo ayaa ujeedkeeda ugu weyn waxa uu ahaa dadaalada uu labada dal ka dhex wado iyo sidii wejiga labaad ee kulanka labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya loo qaban lahaa. kulanka Uhuru Kenyatta iyo Farmaajo ayaa waxaa la filayaa inuu Addis Ababa ka dhaco 13 bishan oo ku beegan Sabtida soo socota. lama oga go'aanka uu Farmaajo qaadan doono marka uu la kulmo Uhuru Kenyatta, balse falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa aaminsan in cadaadis xoog leh lagu hayo Farmaajo ayna macquul tahay inuu madaxweyne aqbalo go'aanka lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac isla markaana la joojiyo dacwadda taala maxkamadda ICJ. inuu jiro wada hadal dhexmari doono labada dhinac iyo in kiiska dacwadda la xiraya ayaa hadal haynteeda waxa ay socotay muddo badan, waxaana siyaasiyiinta ay sheegeen inay wada hadal u socdaan Soomaaliya iyo Kenya. kamid ahaa madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guleed oo ka digay inay dowladda aqbasho wada hadaladaasi, taasoo sabab u noqon karta inay Soomaaliya lumiso badeeda. guud ahaan warkii oo idin kala socoteen janalka kulanka wararka xilligan daawade waa naga inta. haddii aad tahay mid naga cusub fadlan subscribe sar, wararkeena haddii aad ka heshana like sar oo aragtidaada hoos noogu reeb. mahadsanidin.